بسم الله الرحمن الرحيم. soo dhawaada dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed rag iyo dumar meel ku sugan tiimba oo Cabdisalaan Gentleman baahda midnimo qaran nabad iyo nolol iyo dhammaan dadka bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal aad iyo aad baan idin salaamaya dabcan barnaamij baan u soo galay caawa halkan inaan tuhunka iskaga reebo noocu doonaba ha noqdo insha Allah ta'ala marka koobaad waxaan leeyahay horta soo dhawaada walaalayaal waana khayr waana wax wanaagsan sidii bulshooyinka Soomaaliyeed iga baratay ama dadka page-ga ku xidhan ama sidoo kale dadka ummadda Soomaaliyeed oo dhan hal haysteedu markastana waxay ahayd dadka gees lagu yahay anigu tii baan runtii markastana u taaganahay midnimaduna waa muqaddas baan leeyahay dawladnimadana in la taageeraa waxaan leeyahay waa muqaddas iyaduna waayo wadanta caamka ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa ku jirta marka waxaan jecelahay caawa waxaan ka codsanayaa inaad si balaadhan u sii faafisaan waayo wararba suuqa la soo galiyay dabcan xilliga waxay soo kiciyay in ku turkuteen iyo been abuur magacayga lagu been abuuranayo sawirkayga lagu been abuuranayo runtii ismaba lahayn bahdan Cabdisalaan Gentleman ahay miisaanka dabcan ayagu siinayaan ama dagaalka hoose ay guli jiraan intaas oo dhan baad qiimo ugu fadhidaaba isma lahayn kulli qof bilaadan oo yar oo anu ninkaas ka muwaadinka shacabka yar baan ahay runtaa fiican nin waxaan ahayna ummadda Soomaaliyeed way garanaysaa inaan mas'uul naahayn dawladeed ma sha Allah aqoonyahan saasana aanan ahayn runtii aanan ahayn nin cilmi ku faanaya nin xoolo ku faanaya oo xayraankaas aaban iska ahay halkan iska nool Faransiiska iska qoxoontiga balse daniyow ma garanayo horta Soomaali Allaha Raxmaanka ah soo hadiyo dhamaantiinba tawfiiqdana hayna waafajiyo xaasidkana hayna naga saaro xumaantana Allaha Raxmaanka hayna naga saaro qalbiyadeena qabyaalada iyo qurunka Allaha Raxmaanka hayna naga saaro horta intaas waa duco mar labaad baan biska ku bilaabaya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sayyidina wa nabiyina Muhammad alayhi salaatu wasalaam soo dhawaada walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaadba rag iyo dumarba waanan guul baan idin rajeynayaa ma sha Allah waxaan u soo galay waxay horta marka koobaad inaan tuhuni soo galay Cabdisalaan han shakhsiyan aan iska saaro tuhunkaas oo oranaya Cabdisalaan Gentleman taageeradii dawladda uu ka noqday Cabdisalaan Gentleman gruubu ku biiray waan walaalo salaamaya dhamaantiinba ma sha Allah gruubu ku biiray ama lacag qaata ama lacag qaadan jiray ama damiiciisu lacag buu ahaa arrimo noocaasa sidoo kale qodob kale ka hadli doona waxa weeyaan dad iyaguna runtii soo adeegsanaya wax anigu ma sha Allah hablaha Soomaaliyeed waan jecelahay oo haweenka Soomaaliyeed gob weeyaan dhamaantoodba gabadh kastoo Soomaaliyeed qabiilkeedu inta sheegato meesha doonta joogto wax iga adag baa waxa jira dumarka iga adag iyo rag iyaguna runtii safaarada ama dalal ay mudarisnahay ka shaqeeya oo xadxaada oo adeegsanaya dumar oo daanka xumahayba way hablihiiba way xumaynayaanba oo ay iyo aflagaado halkan iyaguna igu soo qoraya oo ma sha Allah halka iyaguna wax ka soo qoray iyo waxaan anigu aaminsanahay intaas iyo waxaan ka hadli doonaa xukuumadan dabcan iyo fikirkan ka qabay ama arrimaha ugu bartay ka soo bilaabmeen horta haddaan Cabdisalaan Gentleman ahay ma sha Allah anu horta markii koobaad de waxa waajib baan u arkaa marka koobaadba in dawladnimada la taageero oo ay ku jirto sharafta ummadda Soomaaliyeed maalintan hadalka bilaabayna hadal baan kulay daan barta la soo fadhiistaa arrinkaygu dawladdu intay dhiili la gashay ama heshiis la gashay uma oran Cabdisalaan lacagta noocaas aan ku siinayna hawsha noocaasa kontraaga hawsha iyo arrinka barta nooga sii wado dawladda waxaan maanta hore ku taageeray baan imkana ku taageersanay oo maxay dawladda waxaan u arkayaa oo ku taageeray inay rajo tahay oo rajo umadeed anigu waxaan aaminsan horta midnimada Soomaaliyeed waana fikirkayga aan aaminsanahay inta suxulkaygu dhulka ka sareeyo aan la dhimanayo qofnaba aan uga tanaasulin waana anigu arko jidka saxda ee Soomaaliyeed isugu imanayso danta ummadda Soomaaliyeed ay ku jirto qarannimo midnimo wadajir inay mid taas ayaan u arkaa anigu inay sax tahay marka haddaan halkaa ka soo bilaabo horta xukuumadayda wixii aan ku taageerayay waxay ahayd de qarannimo marka laga hadlayo qaranka lama yiraahdo qof lama yiraahdo qaranku wax meel istaaga ma aha qaranka cid uun baa hogaamisa qarankuna waa ummadda oo dhan oo la isku daray laakiin qaran kasta hoggaan buu leeyahay ama xukuumadda hogaamisa dawladda hogaamisa
qaranku markuu guuleystaan bulshada dhanna guuleystaaba that's why baan anigu horta marka koobaad xukuumadeeda ku taageeray waxaan dabcan iska saaraya waxa la wixii tuuno anigu nin marka horeba dhiil lagula galay ama heshiis lagula galay maan ahayn iminkana sidii uun baan u taageersanahay waxaana leeyahay mar kastaba xukuumadayda siyaasadeeda iyo howlahay wado intaba waan ku faraxsanahay waana taageersanay dalkayguna waa Soomaaliya madaxweynaheeguna waa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo iska daa shakhsi iyo qabiil iyo waxaana qof halkaa ka soo hadlay iyo qof aniga maanta ay bedeli kara oo fikirkayga iyo mabda'an aaminsan iga bedeli karaan been buu isu sheegay waa qof aan in badan iyo qoono de miisaanna ima saari karan in malaya qof aan imalaynba karin hadduu maalinba meel iga soo galo runtii waanay dhacdaa oo waxaa dhacdaa had iyo jeer qof baad erey yar u sheegaysa ereygaa markaad u sheegtidba wuxuu ka dhigay wuu tarminayaa wuu buunbuuninayaa balaayo ka dhigaya horta haddaan cabdisalaan ahay mararka qaar waan cadhooda laakiin cadhadeedu ma aha mid intaan kusii talax tago dabeetana wixii aan fikirkaan aaminsanaa ama wixii aan waday iga duda ma aha cadhadana bashar baan u ahayo waa kii ninkii maxamed xaashi dhamac gaariya u lahaa gefkana bashar baad u tee haddaad ka garowdo khalad gobbay caadadeed isma faananayo siyaasiyiinta waaweyn ee dunida anagu waxba mayhibe ayaa intay cadhoodaan oo mararka qaar inta ama doorasho laga helo ama arrimaha qaar ayay markay temperature-ku qofku kaco inuu khaladaadku markuu dhaco ayaa haddana waxay tanaasulaan oo waxaan Soomaali madaxdeenii hore laga waayay kuwii dalka naga burburiyay ayaa waxay u soo noqdaan maslaxadda guud iyo danta guud iyo wixii ay ku tabacayeen inaanay kuma tiraxtin waa taan anigu qabo waayo maalintii ay dalkeena Soomaaliya uu taagnaa haddii kuwii cadhooday ee Maxamed Sabraala uu xariistay ka cadhooday iyo kuwii kale hadday meel isugu iman lahayn solution intay meel wada fadhiistaan dadkuna uu badbaadi lahaa dalkuna uu badbaadi lahaa cadhaduna hadday kula sii talax tagto oo ay noqoto inaad cidiya ku dagaal noqotid marka horeba miisaankaaga iyo micnahaaga iska yara bilaadan dee cadhada waxa u tahay waxyaabaha qaar ba markaa walal waxay ka faa'iideystaan had iyo jeer cabdisalaan oo kale kelmad ku odhanaya kuwa maangaabka ah warxmata shiilka kelmadiiba si kale loo rogayaa meel kale la soo gelinayaa wax noocaas horta kow kuwa sawiradeeda sitow aniga markaba sawiradeeda iga dhiga waa sawirkayga haddaydan wax wanaagsan kaga hadlaynin sawirkan aniga ale raali kama yihi waa haddaa wax maqlaysaan awal horaa Facebook ku samaysanayseen oo aanan Facebook ku dhalahayn halkan midnimo qoran oo qura aan ka hadlo oo aan dhawid lahaa oo aanan YouTube lahayn oo aad YouTube kaga shaqaysanayseen nin intaa ka qaalisan ama waan idinba faanay war nuur reer faarax wanaag soo jeeda koona kastana Soomaalidii gobta ahayd Soomaali oo dhan baa gobaba nin Soomaali oo baan ahay mana yihiin anigu dadkiis dhalan rogay ee Soomaalinimadii ka tagay ee xasarada iyo ceebta iyo waxa ku wareegay kunjuraafiro hoosana kuma wareego laakiin waxaan diidayo waan diidaa waan abaara kuyaa ka soo jeeday baan qadiyadoodan gooni goosadka iyo fikirkan ay wadaan aanan weligii aaminin oo aan bartaa banaanka uga soo bax ninka qabiil haystay shakhsi haystowna adeer aniga imina waxna iguma sameyn kartid fikirkaaguna waa fikir yar oo dhow kow waxaan leeyahay horta xukuumadda waan taageersanay waxaan u taageersanahay xukuumaddu maslaxadda ummadda Soomaaliyeed ee aan markasta ku soo celiyo diric kaliya ahaantii dareel guusha kama helo dadka gees lugiyo xukuumadduna qabiil ma aha kooxna ma aha waxa qurayga badan inta inaan Muqdisho maalin kastaba si waxyaabaha qaar haba khaldamaanba laakiin ma aha maamul goboleed shirkadna ma aha shirkad yar oo company oo ama hormuud oo kale ama daabshil oo kale ma aha danta caamka ay ummadda u wada ka qiimo badan qof yar oo shakhsiya oo isagu meelaha kula wareega wax yar oo maalayacni iyo waxa salaysin way kow ninka la yiraahdo Cabdifataax Boodhari markana saaxiibaan anigu kulay saaxiibtinimadii kamaan tigin marka horena saaxiibaan fikirkiisa isagu qaasuy go'aankiisana isaga qaatay aniguna cabdisalaan ahaan hadaan go'aankayga aniga leh go'aankayguna Cabdifataax Boodhari iyo qof kale toona markii hore aniga igu mudhalin iminkana igama bedeli karo xukuumadii dadkan idukuna war xumata shiilkaayo anigu saan u taageersanaa ayaan u taageersanahay dabcan ilaa xalayto waxa laga yaabaa inay meelahan aad gaar ku weydeen ama aan qoraal soo qoray arrimahayga iyo khaaska iyo qoyskayga u khaasa ayaan u nafsanay qofka bilaadanka break u qaataa iyo dabcan de ma sha Allah halkan waxyaabahan idinka gudbinayn oo personal ah oo aniga iyo qoyskayga ku kooban qura ma xataa family-ga sare xaajeedida ma sha Allah Allah haydayo guliyo gobnimo baan anigu u nafsanay laakiin se fikirkan la qaatay iyo hadafkan la iyo meelahan ay ka hadlayaan nin waxa qaba ama ku fakarayay marnaba ma ahayn nin intuu cadhooday
haddaan cadhooda anigu halkaa cadhoonayan maalin kastaba soo geliyo soo fadhiisanayay horta taasay ahayd. Okay, qolyahan iyagu qayb ka mid ah waxay ku hadlayaan dabcan af Soomaali bay ku hadlayaan, laakiin Soomaaligu waa kala lahjad oo Soomaalidu dee waa kuwan bar waa Soomaalida ogaadeen iyo maasha Allah dadkayga walaalahay Soomaali waa Soomaalida Djibouti, Soomaalina waa kuwa waqooyiga, qaar waa kuwa bartamaha, qaar waa kuwa koonfur, wuxuba waa walaalo anigu wuxuba way ii simeen waana dadkayga. balse waan fahmaa oo anigu wax bilaa daadmeemi halka xabadu ka dhacaysana waan garanaya. horta halkan waxaan ku hayaa haweenka waan ku soo celinaya weligay ma dhici doonto inaan qof dumara manay horana uma dhigin ilaa malcamada ilaa iskuulkii markaan dhigay aabahayna ligama soo dacwoon. allah u naxariistay Cabdiraxmaan Aadan anigoo inan ama gabadh inanta markaan leeyahay ama gabadh ama tayarna anoo gabadha waan dhahay mid yar iyo mid weyn toona aflagaadana aanu geysan waxna aan ku samayn. dumarkana dabcan xaqooda garan karaya ama ما شاء الله دايما كان أما واد جورسن ما شاء الله ينتظرنا حق يحقوق بيننا تمر كمان في الجديو منعايو لكن سأنا قوي على مرة بدن قال حتى الله في سفر استي هل كان تي سفر استي واتي قبل وريشين استي من نبا وحن أو دوحن نفكي قبل سو مريكن قبل أسوي نادر تبه رويدا لوريش فكرة ده هي وحاطط كان قبصني بابي أي مسنتين هل كان تي سفر يجو سو قرتي لا يفناي سو كشبيتر إن هذا واضح سنة ده واحد كهلي ترتي وتي أستراليا ما لقون أولد برعيتك وحيابي أهمية برشلان كهل يالها نمان كان عدا دad كان هايستان دولتنا وما يسمين إسبدلنا ما يسمين دad كانوا بين نعسين وهالكانوا بين يقول هذا سومالي بعدو جينا حبشة ولا لاتين أنا قبيل كي يساق وانشعله رم بندي شيء سومالي قبيل لا سومالي ده وانشعله لكن فكرة دخل دان كوحاوت كوحها أنا بحيي كوحها هرجميسي أما ما في هذا iyagu danaystayaasha ee dawladda intay burburiyeen dadka nacaybka iyo cugdada ku abuuray ee markii koobaadna ka soo bilaabay hadaladeen bartaag kalaha Facebook-yada iyo live ee xitaa inta soo Facebook laga xidhay waxay siyaasiyiinta cunsuriga laba kooxood oo kala qaado siyaasiga cunsuriga anigu waxaan u aqaanaa ku yiraahda Soomaaliland gooni goosadkoodu waa muqaddas Soomaaliland baa waxaan ka qabaa haddaan cabsanahay niman waaweyn oo cunsuriyana waayo dad isku mid ah oo isku dan ah oo walaala ninka kala saaraya ee arrinkii gumeystihii baa halkan wax yimri maangaab baan u arkaa ama oday weyn ha noqdo ama mid yar ha noqdo anigu fikirkiisaan duraya qabiilkayga ma caay weligayna caay maayo laakiin fikirkooda khaldan ayaan leeyahay fikir waxa weeyaan medhalaysa oo aan shaqaynan ilaa imkan aan ku taagan kow sidoo kale fikirada kuwa kalena waxaan dhahdaa siyaasiga danaystaha waa ka dawlad kastaba hor istaaga koonfur ba ka soo jeeda waqooyi ba ka soo jeeda hadduu doono koranay midnimadan aaminsanahay laakiin waa danaystay oo waa haddii waa cadi ah ku cunay ama ku ciiday waa haddaan waxaan doonaya aan waayo dalkan duminaya oo hebel qabiilka weeyaan oo waxa labadan nooc baan u kala qaado aan dhahdaa waa siyaasiga cunsuriga siyaasiga danaysta markaan leeyahay siyaasiga cunsuriga ayaa waxay u qaataan dadka qaar inaan qabiilkaygii isaaq ahaa aan maagayo ma maagayo qabiilka isaaq qabiilada kale ila midi oo qabiilka oo dhan isku wada qaadi maayo aniga ku jiro ka dhashay qaar badan baa ku jira niman baa aaminsan ilaa imika iyagu macal islamtan sheegtaan ahaa midnimada Soomaaliya Ismaan Kalluuniya baa kamid ah ninka jaaceer loo dhigi jiray baa kamid ah dadka deemalaynta caanka baa garanaysan in fara badan oo aan caan baahayn oo mabda'a fikirkan aan qaba aaminsan baa jira oranaya war dawladnimo Soomaaliyeed baa danteedu ku jirta dadkayga waqooyina insha Allah taala anagoo isku wada doodobaya mar uun baan horta heriyadan gumaysiga ee khaldan iska qaadi doona waa gumaysi waayo dadkayga baan lagu leeyahay waa kugu cadow Soomaali baa isku cadow waa been Soomaali isku cadow ma jirto iyaga inta raswata dadkana waxba uma qabtaan horta dumarkaan soo daadagaya gabadhaas markay Hargeysa tagtay waa inantii halkan aniga iga maageysay ama haweenka ama qoftii dumarka ahayd ee loo oran jiray Ruwayda beerana markaatigu soo fogeeyay iyadana way soo hadli doontaa halkaas ay ugu soo qortay cabsanaa ijtimaaciyadeed waxaad ka hadlaysaa waa xaqiiq waxa nasiib darrada daba banaankana waa soo dhigi doonaa anigu horta Soomaali baan waan isfahmaynaa ninka waxaan ku socdo WhatsApp-kayga waxa ka buuxa dumarku anigu meel adag bay wada taageen dhamaantood waana ceeb nin dumar la tirsaday ama dumar xitaa cod haday codkayga xitaa hadaa samayn karaysaan weligay gabadh amaan caya ma afliga doogist haddaan fahmo waa telefoonka baan ku dhigaa walaal raaliha wallahi barik fi baan kaga baxaa cay qabiil cay Soomaali cay kayga cay daacay anigu qabiilka ma halkan dushiga saareen bal ninkii adeegsanaya fikirka dawladayda war anigu dawladeedu waa Soomaaliya
dowladdan deriska ma aha fikirkana kuma shaqeeyo dowlad derisa aanu nahay nin hunguri iyo lacag yar lagu soo siiyana ma yihi miskiin yar oo dhow baa too meel xaadxaadho oo malaa imika duniduba ugu horrayse adeeranu waxaan ka soo jeednaa dad la fog wixii soomaaliba ku faani bay jirtay hadday tahay dhaqan hadday tahay geel hadday tahay iimaankaygaa ganiya iyo maskaxdana saaran baa ganiya gaadhi yar iyo wax yaroo la haysto dumarkan haddaad dhaqan xun tahay oo aad sinaysanaysid oo aad dhaqan xumo samaysna anugu hablaha soomaaliya dumarka waanan guursadaa si sharaflana waa sameeyaa mana waxaa kan laakiin adigay liidnimo kuu tag inaad soo dirtid dumarkii oo dhantaada message caaya u dhig nin rag haddaad tahay inaad aniga ila soo xidhaabay ahayd waanan kaa diiday dee arrimaha qaar oo anigu markay noqoto dowladda jabuutiyata soomaaliyaan taageeraya maxaa aniga eritrea madaxweynahayga siyaasadiisa ayaan ku socdaa madaxweynahayguna waa madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo soomaaliyana isagaa u madaxweynaha laakiinse haddaad tahdo waxaan kugu siinayaa waxan iyo waxan qof adiga kuu shaqaynaya maan ahayn mabda-aygana ma noqon karto eritrea iyo arrimaha jabuuti dhex yaalana waa iyagee u taalla hadday dalkaasu soomaaliya bayna ka godaabaan anigu u arkaaba khalad maadaama aanay eritrea xitaa waxba ka dhacsan karin madaxweynahayguna uu ku saxsanaa markuu aadayay meesha la idhaahdo anaana kuu micnaynaya xisaab khaldan baad isu geysateen dalka la idhaahdo eritrea markii la saarayay cunaqabataynta kumay dalalkii saaray idigu kumaydaan jirin east africa etoobiya hadday tahay suudaan kuwa noocaasa ayaa saaray kuwa noocahana maanta heshiis bayin maangaabo meelahaagaa iska xadxaadho balaayaad iska dhigaysaaye annagu waxaanu ka soo gudubnay haddii cay dumar aad soo adeegsateen na tarayso kumanaan jeer hore nala soocay afka halkaaad ka gubanaysaan ee aad ka hadlaysaan imkana sawirkayga ad qaateen waa fahmi karaya sida raganimadaana baan u dagaalama anu markaan raba inaan cid u dagaalamo dalkayguna adeer waa ka waanu ku saxsanyay madaxweynuhu inuu madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo inuu eritrea la heshiiyo inuu etoobiya laftigeeda la heshiiyo waa dal sovereignty haddii maanta aanu dal nahay dal anaga soomaaliya wax noo qabtay oo aan odhan karno dalkaasaa wax noo qabtay ma jiro dhibaato waxaan 4.5 baa jabuuti naga yimi 4.5 waaba qabyaaladba waa ka maanta soomaali gebigeygaba bartaana kala dhigayba haddaanu doonayno adeer dadkaagii oo dhan baa halkan ku wada dhibaataysan waanu ognahay iska noolaada nabadiina iyo wixiinaasun iska haysta waxaana soo duubaysaana waxaan la yaabi jiray ninkii la odhan jiray duqbilow anuu sida duqbilow halkaa duqbilow waa walaalkay waan dabcan waan jecelahay fikirkiisana uu ku saxsan yahay horta qolyo walaalayaal waa qolyaha noocaas oo ina yaroo imka codkiisa laga soo duubaya halkaas oo malaa walaaladeeda xeebta ah dulmigana iska daa anigu dulmiga ma taageero ninna dulmi kuma taageerayo hadduu macaaka ila dhashay yahay wallahi inaan dulmi taageerayn bointi baan kaala hadlayaa laakiin anigu caayi iyo halkanaa sidana iyo soomaalidu waa dad baktiyaya iyo lacag yar baa meel looga soo qaaday waxa la shubayo dee maba dhegaysama karaba waa wax anigu aan ka yeersoonayaba oo nin weyn oo iska dhigaya inuu xitaa meel uu dhow oo dee dhowriyo kutajir xitaa waa wiiknimo waa daciifnimo laakiinse dhaqanka soomaaliyeed intaasu nimay ku jirta anuu soomaali baabanu aqaani nin soomaaliyeed oo haweenka xumeeya way jirtaa oo qaar dee haweenka xumeeyaaba way jirtaa oo akhlaaqda xun iyo waxyaabaha noocaasa bara kuwaasun baad qayb ka tahay haddaba anu walaalayaal waxaan taageeraa waxa weeyaan xaqaan taageera waxaan halganka ka socday soomaali galbeed ee maantana meesha fiican maraya ee ogaadeynaya ama soomaali galbeed sax baan u arkay waana taageersanay weligiina waan taageeraya waayo iyagu waxay hoos galeen oo nalaga hoosgeeyey dowlad rajiima oo iyaduba gumaysta ahayd oo etoobiya la odhan jiray ayaa nalaga hoosgeeyey maantana ididiilo wanaagsan baan arkayaa calankii soomaaliya bay calankoodii soo geliyeen qayb ka mid a heestii soomaaliya toos bay ku soo dareen maasha wax badan baa isbedelaya madaxweynahooda cusub ee iminka ay maanta ay samaysteen wuxuu ku dhawaaqay inuu xurriyatul qowlka uu ka dhigayo free maasha allah somali state bay la baxeen iyagii jabadii kale bartaa ka dagaalami jirtay wuxuuba way wada raaceen dalkayga walaalayaal anigu qof yaroo maangaaba iyo qof isagu ka cadhaysan hebel baa hebel dawcuba libaaxuu dabadiisa ka ciyaar daqaqaanka eegmada daymadu ka carara ma ima bedelo mana taageero danta qaranka iyo danta dalka soomaaliyeedna waxaan u arkaa inay ku jirto dowladnimo maamuladana waxaan qabaa inay virus bay yihiinba gebigooda hadalkaygii weligii baan ku taagnaanaya maamuladu marka ay dowladda sare la shaqeeyaan qaar ba waxay dhahdaan maamulku rayd buu leeyahy waa run dastuurkaa ka sarreeya laakiin dowladda federaalka mana kasii sarreysa
waa inay taa hoos tagaan oo ay taa iyaguna ku daba faylaan taas ayaa markaa sax noqonaysa laakiin nin maamul beel haysto oo beel isku soo koobay oo beel Somaliland la yiraahdo isku soo koobay waa qabiil waa nin maangaabo baqanayaan lagu waliba arkaa fulayaba iyo mid kale oo reerkoodii meel ku urursaday iyo mid kale oo isaguna reerkoodii qabiil meel ku urursaday weligii baana taageereen waana waxaan u arkaba inay Soomaali la hadheen qofka taageersanna waxaan u aqaana qof dabcan qarannimadii Soomaaliyeed uu qabiil kaga weynaaday waayo waa qabiil ka Somaliland waa qabiil kan Puntland waa qabiil Jubaland waa qabiil kale Allahu musta'an wadi kana maanta wad arkaysaa oo Soomaali wixii qabiilka loo oran jiray waa shaqeyn waaye marka run isu sheegno Somaliland ka dhex shaqeyn waaye qabiilka iyaga gudahoodii baa maanta haysta kuwii anagu aan ka soo jeedin ayaa maanta is wada haysto waxaad arkaysaa waxa khaldani inuu yahay arrinkan qabiil ilan waxaan markii hore wuxuu ku bees gareysnaa hal xaraane nirig xalaal ma dhasho markii hore waxaan qabiil ahaa dabadna waxa la doonayaa in qarannimo laga dhigo ma noqonayso taa waa taas oo waxba ma halkan la isku haysta hadda xitaa maamulka Puntland hoos ugu sii fiirsatay isaga laftigiisa qabiilun baa madax isku jiraba Jubaland hadda deegtay qabiil niyo mala baydhabo kala koonfur galbeed isagana mid kale baa haysto oo meesha dee ma laha waana dictator kale dictatoraduna kuwa sare iyo kuwa hoose meel bay ka wada shidaal qaataan hadda jeer ninka dictatorkana dulmi buu sameeyaa qabiilkiisu isku wareejiyaa ummadda madaxu isu geliyaa waa bila kalsooni conference baa ka maqan aan xagga ka hadlayaa war Nelson Mandela oo 20 something years xidhnaa oo Robben Island ku xidhnaa oo u soo halgamay ayaa teeramkiisii koobaad ee madaxtinimada markuu 4 years haystay ayuu enough nimanka kale ahaan kale ee xisbigiisa ku jira candidate ha noqdaan oo soo tartamaan oo ha sharaxaan waxyaabaha Afrikana dib u dhigay weeyaan Suudaan baad arkaysaa Djibouti baad arkaysaa mayaga meesha leh Rwanda waxaad arkaysaa Uganda baad arkaysaa ninka aleelahay haysta Paul Kagame dadka jeclaaday goonna waa la mid uunoo halkaas u bay taageen dalalkan aynu ku noolahay shantii sanaba waad arkaysaa wajig imisa Mareykanka isu kiin bedelinta joogteen annagu inta Faransiiska joognay imisa isku kala bedelay saddex madaxweyne imka labay maraysaa imka intaan ku noolaa dabcan midaan ku soo gaaray mid maanta jooga maxaa inagana waad ku garaadsanaysaa dabadna wuxuu nintu xidiyeystaa wuxuu noqonayaa marka dambe qabyaaladeysta akbarba wasu dadkana qabyaaladu si kala findhicilaya ilaa wax bilaahana oo bila ninka yar maanta jiga qabsaday iyo madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo waxaan kala dardaarmay inaad election iyo doorashooyin aad samaysaan oo aad ka tanaasushaan waxaan la yiraahdo unlimited term wax la yiraahdo qof meesha iska haystaba xitaa hadad wanaag kasta wadid oo meesha si joogtid dadku hamba rag kuwada ay yeelanayaan waa lagu nacaya waana waxyaaba Afrikada dib u dhigay maamul goboleedadana waa la horta halka ayaan iyadana dhigay qoliyii baan ku soo noqonayaa sawirkayga sita ummadda Soomaaliyeed ee wada gaarsiiyay clipka haddaan Cabdisalaan Jidmaanahay oo diyaarka weydaan arrimahayga ee khaaska ee personalka ayaan u fadhiistay doqontuna had iyo jeer kelmado yar oo khaldan markay qofka bay waxaan anigu xitaa aan focus ka baa aniga saareen baaba horta wax fajicisaa bay ugu noqotayba ilaa caawa tabcan dadkaygii aan isjeclayn anigu dadkaan u shaqeeyaa dadkaan gees ku ah xukuumadeedana wanaageeda iyo horumarkeeda jecel waana taageersanay siyaasadda waxaan u arkaa danta ummadda Soomaaliyeed inay dawladnimo ku jirto nabad iyo nolol waxaan leeyahay guuleystaa halka ka sii wada way dhici kartaa ninka cadhaysanow iyo ninka isagu doonayo daadar isku wada qaadana waa khalad isku wada qaado ilaa madaxweyne ilaa xukuumadda ilaa ummad waa la arkayaa inta dabcan waxyaabo khaldan way soo galeen anaga khaldanaba ma inaga laftigeena ama ururada ama midnimo qaran ahaana ama qaar kale ahaana soo inaga laftigeenu marka qaar khaldanaba in soo batana sulba karweynaba ee qaar inaga mid ay khaldan ee inaan isqaban karin waxa xukuumaddan iyo nin daddan loo diray qaar badan oo khaldan baa ku dhex jiray ta marka inaad noqotid qofkii danta ummadda oo dhan ku duminaya shakhsi horaa loo soo arkay shakhsigaasaan ku duminaya anigu Cabdisalaan oo Ilaahay googi ma aaminsanay mana qabo bal nimankay ka baxsan weydii gabadh ba waxa dumarkii maanta wala ragii waa kuwa soo kuwa liitay qaar ma dumar qoranay hebelay oo kale hebelay waxba waa liitaa ninka marka midnimo qaran maanta hungurigu ka galay ee Muqdisho jooga iyo ka meel kale ba jooga ee ka been abuuranayo midnimo qaran waxa aasaastay Jamiila Jaamac Jibriil anu qof kasta in la dulmiyo ma jecli macallimiinkiina maanta kuwina qaar asaasana dulmi Ilaahay ba آخر عذابتهم كقلية هتان إيه أما قف دين عصار أساسي وكوباد واحد جميلة ينتهي هذا النعيم جدي دمر خاصة هاي يجا سكا كناي أنا جه حكي كلام فرح بنادر بتشتين إيه كنا قارن لاركن
kuwa uu damacu ka galay ee doonay inay wax ku cunaan ama kuba cuniba jiray dabagal baa idinku socda xaqa ayaanay tegaysa dhaqaalahaad ku urursateen magaca beenta intaas ayaa idinka baxsan kari weyday qof dumar oo halkaas soo fadhiisatay oo cay ku dhacayso oo la aflagaadeynayo ayaad intaad meel kasta la marteen midnimo qaran anigaa fangaraya midnimo qaran annagaa waxaan ku samayno war annaga cidna nama fangarayso cidna kharashka ma naan qaadan jirin cid lacag nagu siin jirtayna may jirin dumarkaasaana haddii raggii wada qaayn midho noqdeen anigu iyagaan leeyahay mar kastaba waa kuwaase bal iyagaba hala waraysto waxna idinkama baahan dhammaanteen miyaan wada baahnay hebel baa baahan dadkan maangaabka horta kuwan iyagu meelahan ka hadla dee caqligooda intaa siiyeyba iyo garashadooda oo qofkan kominka soo qoraya anigu ma sii eegaba hadduu doono waaba mid aan dhaliba karaba ama dhowriyo 10 jir wax iska soo qorayaba aniga kaasi ima diiriyo kamana damqado laakiin rag waaweyn oo mas-uuliyiin sheeganaya iyo qaar imika dana nognoo muqdisho hawla ka wada oo ku doodaya war wax kale meel kale xaadxaadho arrin kala samaysta tan midnimo qaran la yidhaahdo jamiiliya baa noo guddoomiyaa ilaa imika mar hore baan dumilin anigu saan qabo structureka dumarka nooga guddoomiyaa xaq bay u leeyihin dumarku inay dalkooda iyagaaba dhibaatada ugu badan ku dhacdaaba anigu xitaa dumarkan iminka qaar xitaa soo caytamaya waaban ka naxaaba qurbaha haweenka soomaalida waayo haweenku dee aayadan baa kusoo rugtay inay xijaabka qaataan oo balinka gaalnimada ku ganacsan ayaa carruurtiisa gaalnimada kuna ganacsan xaaraanna ku ganacsan dumarka qaawan ku ganacsan iyo waxyaaba noocaas miyuu ka naxayaa gabadh soomaaliyeed oo karaamo leh oo maasha allah allah raxmaanka uu diimaha ugu qaalisan uu siiyey ee muslimka islaamka oo gaal intuu la yaabayo markii xijaabantii xijaabkaani ku qurux badan haweenku gebigoodaba macalta gaalka cad haddii ay kuwa kristanka xitaa hadday xidhaan ama dirac ama wallahi markaasi anu markaasaaban indhahaygu way soo jiitaan runtaa fiican kuwan qaaqaawan indhahaygu ma soo jiitaan xaqiiqada wanaagsan waayo waxaad arkaysaa xigmad baa ku jirtay ilaahiya allah raxmaanka isagaa naga cilmi badan isagaa naga deed koonkan oo dhan isagaa baa waro wax kastaba dumarku waxay ku qurux badeen inay xijaabtaan surwaalka xitaa kuma qurux badna xaqiiqada wanaagsan hadday xitaa ay surwaalka diin waayeen inay bahal dheer qaataan oo ilaa meelahan jooga markaasay qurux badeen laakiin markan anigu waxaabaan u arkaaba anugu cabsanaha kolley dee iyo qofka muslimka iimaankiisu uu sax yahay wallaahi inaanan hungurnayga galin eeginna markaa waxaan leeyahay raggaa dumarka xumaynayow adeerayaal idinkuna haweenka aada xumaynaysaan ka daaya mar kasta walaal waxaan kusoo celinayaa oon ku laalaabanaya waxa weeyaan qoryaha yarar ee facebookyada isticmaalaya ama bejajka isticmaalaya isma naqaano iminkana ima garan karaysaan mana yihi qofkaad imoodaysaan ma yihi haddaa idinku qurun iyo waxaan aad maxaa la yidhahdaa gruubyadan yarar magacyada xunxun leh hebela waxaa la siiyey kan kale waxaa la siiyey war weligiina waana noolaan doonaa halkan sanad iyo malaa 2 sano wax yar labaad gaarkiisin ma hore ay taqaaneen maraan meel gaaja iyo waxana ka hadlaysaan iyo dunida anigoo yar baan soo maray oo way ogeen ragga soo afkooda joog jirnay oo laba yaabnayba meheradaha iyo goordhidan wadanay iyo saan u noolayn ma sha Allah dib kasta baa ku jirtaba waxna aan ku soo baran markii horena waxna lagu soo canqariyo lagu soo barbaariyay nolol fiican haddaad maalin yar ka dhigatid qofkan iminka noloshu cusub tahay maalin baad mid warniyo hawl noocaas ah jirto oo libax la waxyaabo yar ma la yacni haddaad ku wareegtaan هذا رني كسر يا باب نهاي وحن كسر مركا وحن لا يهدو عبا لباحو دبدي سكايا تغان كيغ مدا قيمدو كعرر ني فقير كو كوريبا ادو لوغو فدميا مي انا دد كان ولا وحن دلدلال خير اي ماتيرياليزم كيو ماتيريال اي ارمان نوعاس ايا ان ميهي لكن وحن تاغنahay Soomaaliya ma ku faanaya ni Soomaaliya baan hay cidina iga misidto idinkana waxaan idin qurada daarmay markastaba hiyalkiina Soomaaliga bara Soomaalinimadina ku faana taariikhdii dhulkiina bara halgamayaashiina Soomaaliyeed bara dadkiinu qof kasto Soomaaliya ku qanacsanaado inuu Soomaaliya yahay markaan qabiilada yar hoose waxaan adiga soo degtay yaan wax Soomaalinimo ka hooseeyo lagu faan waayo taariikh baynu lahayn waxaan ahayn dadkii koobaad ee qoodihii adduunka Sinha Abdullah Hassan Soomaaliya baa ninkii koobaad ee Afrika diyaarada lagu soo weeraray waa halkaas aynu taagnay haddana Soomaaliya Sinha Abdullah Hassan saasan afrikaankan yar oo dhanna waxaan ahayn dadkii wax baray ilaa meesha la yiraahdo Angola Mozambique indhahaygaas ka soo qaada Ziyaad Barre Street meel ugu magac daran Allah u naxariistay libaaxii Afrika wawgeedan Ethiopia maanta xitaa wax iska dhigaysa daqiiqadan ku qabsan 64 inagoo intan kaba yarba oo ku wajaala halka inagu soo weerariyay
wanigi ka adkaanay jibinayni 77 wanigi bartooda ugu tagayni Soomaalinimadii may dhamaan Axmed Gureyne Soomaaliya buu ahaa SOR rag Soomaali bay ahaan qabkii Soomaalida waxa bahdilay qabiil iyo qof yar oo meel yar oo hoose ku wareegay Soomaalinimadiina ku dhinta qurbahana waqti yar oo kooban been joogina dalkeenuna ma guuriyo waxaan idinku la dardaarmayaa mar kastaba waalidiinta Soomaaliyeed rag iyo dumarba Soomaalinimadu saanay meesha uga bixin dhalinyaradiina ubadkiina waxa bartaan taariikhdii wanaagsan tan midowha barana hebel ba SNM ba AFC bahalkii dishay UNC ba kan kala dishay SBM ba waxa samaysay wuxuu wada siiroobe ahaa gabigooda dhanba ama SBM ha noqdaan ama SNM ha noqdaan wallahi inaana mid aqal ku jira aanu jirin gab ujeed qura one plan bay ahaa nothing else plan A ba hano dalkeen dumino plan xayawaan ayaan wala SNM qarba mujaahid maanta sheeganay muxuu mujaahid ku sheeganay musabbixi oo kala wada arkaysan iyo kuwii dalka burburiyay siyad baraadray oo nabaray oo Russia geeniyo Mareykan iyo dawladda Soomaaliya intay isagii burburiyeen ayay maantana waxay noogu bedeleen in dumarkii qoxoonti noqdaan inay meelahan badaha Mediterranean Sea ku soo daataan maxay ku bedeleen ninku markuu wax duminayo waa inuu wax ku bedelaan anigu ma fikirkan maanta nabad iyo nolol markasta waxaan leeyahay la taageero waa mabaadidan aaminsanay qof kastana day mabaadi waa aaminsan waayo markaan duminayo maanta nabad iyo nolol keebaan ku bedelaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre iyo xukuumadan maanta iyaga hogaamin oo ah kumaynu ku bedelaan wadalka saano mucaaradkeena waxay saacada kaga fadhiisatay waxa la dumiyo qofkan maxkamadda uma qalmo kan kale gudoomiyaha waxa uma qalmo martiba meesha lagu yeey masaga fishin balaba masaga aragti balaba qof wax soo ururnaya la doonaya oo tanaasul sameeyo si qofkan hadhow bari ka maalin meel qurux badan iyo kursi uu gala wareeyo laakiin meed wali aragtan xisbi mucaarad oo dalkeena ka jiro anigu wali ma arag cabsanahan idinka soo sheegi doona anigu nin opposition constructive opposition mucaarad wax dhisaya ma arko hadaan ninka Salaad Cali Jeelo kale wali xisbigiisa ma registration lagu ma sameey waan arkay dawladda hal daayo laakiin qaar dil jiriyo wax la baxay oo yidhaahdaan dib jiri ma waqaanay oo isku ba cadeynay dalka badda markii la iibinay Umar Cabdirashiid baan ku saxay umaad kaba beedhidba hadda dalka adigu marka aad nin u tuurayahay waan aragnaa qaar mucaaridto kooda ugu weyn maanta dhaa mucaarid baan hogaaminaya Cabdiraxmaan Cashkuur dhida aniga aan waxba sheegay karno waxba iga dhicin karin macdalla inuu umada Soomaaliyeed wax ka dhaciyo noocaan waa kuligeena ma aamino isku mana xidhan kuwa marka igu tuhmayo de idinka ku dhinaaba horta qofku kulay Soomaalidu waa ku turkuteen oo qofku hadaan war been loo sheego iska qaadanaya anigu ma arko ilaa imika mucaaradad aynu aamini karno teena aynu ilaashano waayo experience way arag ayaan u nahay dal dumiyo oo ay murmaan UNC baa dumisay SNM baa dumiyay dabadna dalkii dhamaan inkaarti baa ku dhacaysaba dadan dawladnimadu dalad baahed ama geed hadhaca umada dhan harsanayso mid masaakiina dadka gaweeyay maanta aynu dhibano iyagana kuwa laga tirada badan yahay wuxuba way sinaayeen maantana 4.5 qabiilkayga weyn oo anagu afarta qabiil oo weyn baan ka soo jeedaayo dadkii kalena waa leeyahay maxay macnaha ay sameeyeen maxay oo waxyaabahan nooca dadka bara taariikhda bara 1987 meehe waa waxyaabaha xitaa Suudiya satro mashaariic waanan samaantay meer qaban dad wax ilaawina waatiin Soomaaliya kuwan anigu maanta mustaqbalkayga iyo magaaladayda isku haysano Hargeysa iyo Burcayo 1987 imka YouTube inta background kooda dhufta musabbixi 1987 Hargeysa agteeda isagoo jabhada anu طبعا shakhsiyadiisa waxba kama sheegayo laakiin fikirkiisana la imka duraya diidinay 1987 waa 1987 Hargeysa meel duleedkeeda ayuu jabhad ku shirinaya marka waa jabhadii sanamtay wax kuma shirinaya isagoo marka koox uu ka tirsanaa marka meesha yar haystaba odayro bariida xaasaha taliyaha booliska iyo cadeen hadaba baan waxa ciidana ay dadiyadu ugu yeedhaan janaka ciidamada ee Somaliland oo ninkan kii ka horeeyay taani kii ka horeeyay hebel shaqale qaar noocaas oo iyagu markaa dawladda ku jiray baa soo goosanaya oo arrimo noocaas halkaas ugu imanayaan gudbad buu jeedinaya waa laga duubaya gudbadiisa hadaladii kamid ahaa waxa ku jiray madaxweyne Maxamed Saabar wuxuu nagu yiraahdaa marka ay waqooyi ama dalka qabsadaan dalkay jaraya okay waa su'aasha koobaad ee aan question mark saaray waxa kale oo yiri Maxamed Saabar uu nadacayadeeyo Allah una xaristo wuxuu yiraahdaa dadka la degan bay leenayaan wallahi labadiiba musabbix uu sameeyay ilaah baan ku dhaartay oo Allah raxmaanka waa la hortagay musabbixi kaliya wuxuu noqday ninkii boorimo weeraray kuwii burcaaba la qaatay oo iyagu meelaha dadka kale uma tigin halkoodii bay ku ekaaday labadiiba markuu isagoo dhintay maanta inagu baliyaha maanta uu noolaado Maxamed Saabar wuxuu dhamaa balaag waan idin sii sheegay kaas kuwii kale ay soo xulaa war kuwaas ay ga darano dalkaba Muqdisho way burburinayaan way burburiyeen
marka maanta nin ka doqonka ku warwaraya waxa la dumiyo waxa la wanaajiyo baa ka qurux badan labadiiba uu sameeyay qofkana adiga lagu sameynaya ninkani waa shakhsi bulshada ka badan oo ka qiimo badan bulshadu waxay leedahay qaar jilicsan qaar agooma qaar aan waxba haysan intaas oo dhan baa mustaqbalkoodii lagu ciyaaraya mustaqbalkooduna wuxuu ku jiraa dowladnimo Soomaali oo dan caama waa ta maanta dowladda roo jilicsan baa kugu faanaya dowlad baan haystaa oo wax noocaas oo sare tacaawinaysa abaal bixta Soomaali ciduma abaal aynu galno cidinoo gudoomi jirtaba ku takrayga haynaga wax tarnay oo ninkii loorin jiray Melasio wallahi baasaboorka Soomaaliya haysta isagii ciidamadiisu waxay joogi jireen meesha la yiraahdo Muqdisho takrayga maanta go'ay inaga babar istaagay halka ayaguna Ethiopia ka go'ay wax badan oo inay tareen ma jirto carabtan imaaraadka dhowr iyo 80kii raashin bisilban gaardo ugu daadinay dhibaato bay nagu hayaan ilaa imikada oo kuwan maalin baxayta u yeedhaya marka idinkuna inaad dawladdiina shacabka ka soo horjeestaan waa idinku liidnimo waxa weeyaan waa maangaabnimo iyadoo intaas soo cadow dal maanta la oran karo Soomaali ay marka laga reebo Turkiga marka laga reebo Erdogan anigu ninka amiirul muuminiin baa waan jecelahay maalmo dhaweed runtii waan ka warwaray lacagtooda leeraha oo hoos u dhacu ku yimi markay loolan isla galeen lacagta dollarka ma sha Allah baan leeyahay waayo way soo noqotay lacagtoodii leeraha Turkiga wax badan bay noo taraa wadogtiino iskuuladeena dhaqtarada maanta dhaqtarka ugu weyn ee ugu casriyaysan dabcan meesha la yiraahdo Allahu musta'an Muqdisho sidoo kale wadooyinku noo sameeyay maalinta dhaweed qaraxyadu ay dhacayeen Allahu musta'an meesha Muqdisho qaraxi weynaa soobe dhaawacina waa lagu soo daweynayay diyaaradahoodu waa diyaaradaha inoo furay inay diyaaradu ku soo dhiiradaan airportkena international airport aadan cadda international airport dawo ma tarin karaba inta waxay noo tababaraan xitaa bayloodayimka noo tababarayaan ma sha Allah waxay noo tababaraan ciidamada saraakiil dhalinyaro badan iyo saraakiil ku xigeen iyo sidoo kale waxay noo tababaraan Allahu musta'an waxbarasho fara badan ayayna siiyeen guriga gobonimo lacagtoodii liiraha ahayd way soo noqotay oo waxa uu hiiliyay oo ay alliance leeyihiin dalalka China iyo Russia sidoo kale suuqan Shanghai Cooperation la yiraahdo isaguna suuqa Asia waxa lagu soo daray lacagta liiraha in wax lagu kala iibsado sidoo kale in lacagtooda ay alaabaha kaga soo iibsadaan meesha la yiraahdo Russia dabcan kor ay u kacday waxaan idin sheegay ummadda Soomaaliyeed Oromona way ku cadu mar kasta waxaan leeyahay Oromo lugna baqo lugna faras ilna iskaga eega ninkana wuxuu inoo yimaado waynu arkaynaa Oromo waxay ujeedkoodu waxa weeye Oromo waa maaha dad garasho dheer ma iska badaaba maxaad Oromo ka sheegaysaan iyaga horta shalay takoon wax ka dhiganay Soomaaliya abo uu bixiyay Maxamed Saabare iyo xukuumadeeni tagrayga way darkiisan iyaga oo 30 sanadood madaxa la geeyay taagnaa oo boqortooyinkii amxaarada oo Oromadan faraha badan oo adeegsatay iyaga la iska adeegsadaba dabcan aynu wax tarnay waa kii inay jijibiyay ninkii loo dhan jiray Melasio ee Soomaali mid ugu yeeray mid Hargeysa fadhiya mid gaalka cayo fadhiistay mid Boosaaso fadhiisiyay mid Garowe fadhiisiyay mid Muqdisho fadhiisiyay maantana Oromo ujeedkoodu waa sidii uu xabashi horta suma kala bedelin ha kala ee haysanina anu rumaan idin sheegaya xabashi waxaynu ku heshiin karnaa marka ay inoo yimaadaan siyaasad isu dheeli taran oo dabcan dalkeenana waxay ku joogaan illegal registration oo sameeyay kuwa burca jooga ana imka ku soo celinaya rag bayaguna waxay yiraahdaan mashruuc bay soo qaateena Oromada lagama hadli karo ana ale Oromada burca soo saara ana halkan qaar ba ku kombeer garan fara dal aan lahayn bay joogtaa dalkan sharci baan ku joognaa iyo nidaam iyo sharciyada noo ogolaada wasaaradooda arrimaha gudaha naga warhaya maxkamadooda naga warhaya Oromada ayaa ka warhaya qaar ba xanuunsanaya virus HIV la soo doonay qaar waa tuug qaar kale waa jawaasis qaar waa sixiro reer burca sixirkan iyaga la soo galay iska soo saara Oromada aniga mar kasta way kula waayo dawlad registration u sameysay markay timaado ee dawladeena waliba hal dawlad baan leenahay nabad iyo nolol ay ku soo daba feeraan ee wasaaradda immigration iyo arrimaha gudaha ay sharciyo ka soo qaataan marka dalkayga way ku noolaan karaan dalkaygu ma aha qof ku doonaan meel iska soo gali karo burca ka saara oo Hargeysa ka saara oo Boosaaso ka saara waayo yaa damaanad qaaday inay idin soo doontaan anoo soo maraan wada sharciyo dalkaygu ma aha open bakhaar iska furan ma aha cid waanu jecelnahay waanu ku dhaadanayna weligeena dalkaasaan leenahay daraawishna waxaan leeyahay walaalayaal noolaada nabad iyo nololna waxaan leeyahay gul iyo gobonimo inamada yar ee sawiradiisana waxaan leeyahay isma naqaana saaxiibayaal isku soo logoyn haddaad horena Facebook igu samaysteen caawana runtii waxaan u soo galay waxa weeyaan magacayga runtii anigu horta Soomaaliyeed deenin isfaash wariis mugti haddana wakii abaan ka daba lahaa
mahmaa fog baa tidhi abwaankii cabdiqaadir xirsiyamo mahmaa fog baa tidhi nin ammaanti miirshaa riis maasho weeyaan mid kalea ka daba tidhi haddii ay kumoosaan kartaa la isku muuja hata haddii magacaaga been laga sameeyo oo waxyaaba iyagu ay ku fakerayaan oo dareenkooda iyo qalbigooda ku jira ay kula soo doontaan waad isbaraxaysaa anugu nabadiyo nolol baan taageero ahay nabadeena waxaan u arkaa danta ummadda inay ku jirto danta dalku inay ku jirto inay guulaystaan wixii bedelaya hadhow yeelkadeed aniga maskaxeeda ma jaajma garayn karaysaan ka hadhow lagu bedelay soomaalinimada isagu wata ee calanka sita waan taageeraya maamuladana waxaa hadday la yimaadaan inay dowladooda ku daba faylaan waan taageeraya laakiin intaan arkayo dhibta soomaaliya inay iyaguba yihiinba weligii baana taageereen lamana safanayo walaa axmed madoobe walaa musabixi walaa cabdiweli gaas igumanaydaan baran hamkayga iyo qabkayguna waxa weeyaan inaanan kuwa taageerin haddaan dhimanayo xitaa bartaasaan weligii joogaya maasha allah dee waxba igama maqnaa alxamdulilah rabbilcaalamiin baan ku jiraa walaalayaal waxa weeyaan barnaamijkan usoo gelay intaasuu ku saabsanaa inta badan waxaan leeyahay waxaynu isku ogeyn ayuun baan anigu mar kastaba haddaan cabsanahay ama aad iga barateen ayaan aaminsanahay kolley tuunka jirana runtaa fiican waa cabdifataax boodhari oo dadku kusoo celinayaan cabdifataax boodhari isagaa fikirkiisa u xora fikirkiisa u qaatay go-aankiisa waa mid isagu gaar ku yahay aniguna go-aankayga anigaa leh cabsanaan waa go-aanka qofku ugu dambaysa isagaa leh anugu kaan markii horena aan watay xukuumaddan waxaan ku hamiyey weligeyba ku hamiyey waxay dowladnimo soomaaliyeed xukuumaddan madaxweyne farmaajo ka hor iyo ka dambaysaba waxaan qabaa iyo imikaba in danta soomaaliyeed ay ku jirto dowladnimo oo aanay qabiiladan isu tegtegay iyo maamul goboleed aanay baahiyaha bulshada aanay buuxin karin iyo halkii dowladu ay buuxin lahayd waayo ma buuxin karaan shaqaabuur ma samayn karaan deegaan waxba kama qaban karaan investment ma samayn karaan dowlada heshiisa lama gali karaan waxa weeyaan waa habaan mansuura waa biyo waa nin foosto gunla u dhaaminaya qabiilkii un baa la sii weyneynaya unoo qabiilkii un baa halkaa laga wadaya aad iyo aad baan idin salaamaya barnaamijkana maasha allah inoo sii shargaraya guliyo gobonimo oo cabsanaan jirtamaan haddaan nastana waxaan u nastay arrimo qoyskayga iyo aniga ii gaara ayaan dabcan u nastay midkaas haydin deeqo aad iyo aad baan walaalayaal dhammaantiin ba idin jecelahay haweenka soomaaliyeedna waxaan leeyahay noolaada guliyo gobonimo anugu wuxuun baan markasta isqaqosanaa saad iga barateen nin khalad ila yimi oo aan arkayo inuu doqonnimo ila yimi wax soomaalinimo ka hooseysa ila yimina ugama hamrado qofna anuu karaamadiisa iyo sharaftiisa meel kagama dhaco laakiin ka aan arko inuu musuq maasuq ama khaayin yahay hal qofun baanan isdinin anu wadan cabsanahay qofka horta kow qaranka soomaaliyeed ka been sheegaya qabyaalada la soo gala ee qabyaalada wax ku taageera inta badan mana iskuma rafiiq ma wada noqon karno waanu kala hadhnaa markuu qabyaalad iga soo horto waa aniga qabyaalad kasoo booday xabsiyada qabiilka kasoo bood baan leeyahay qofkaa qabiil ku jiro okay waxa kaloo aanaan inta badan heshin haddaan cabsanahay waan cadhooda waan sugi laakiin ninka cadhada kusii talax tagtay ee dabadna idhaahda ilaa dee cidiyo ku dagaalan dee hadar ma dhacdo bini aadamku waxyaabaha qaar laakiin danta caamka been abuurkuna weligeed ba way iska jirtay oo dunidan kaa lama yaaba isaga oo dee been abuur qofka kaa been abuuranaya beenta dee hal lug bay leedaho waad ka daba tegaysaa laakiin intii dunidaniba jirtayba nebigeenii dunidan loo soo diray iftiinka badnaa maasha allah ee dunidaba nuurinayay ayaa been laga sameynayay anugu taa wax weynba uma arko wallahi big deal uma arko waayo anugu shaksi yaroo iska daciifa baan oo miskiina nebiyadeeni iyo ambiyadeeni ayaa been laga sameynayay wadinka arkayay dee qur-aano dhan baa kusoo degayay waa waxan waa sixiroole waa kan markaa qofkaana waxay igu idhaahda ma dhegaystee hal qof baanu kala xanaaqnaa waxa weeyaan kow ka qabyaalad iga soo horto xitaa ma aamino waayo dee waxaan la dagaalamaynaaba waa qabyaalad waxayna reebeyna waa qabyaalad midnimada soomaaliyeed baana danta ku jirta midnimada soomaaliyeedna lama kala laha waa wax inaga wada dhexeeya iyo sidoo kale ka isaguna horta kaasaan dadka isugu necbay ka isaguna runtii markuu wax ku talax tago waxa aan kaba soo noqon karina runtaa fiican anu mabda waasumaan weligay taagnaanaya dad maanta dad ku khaldamay qabiiladan aan ku khaldamay marka qaar aan wax ka sheegay waar anigu waan jecelahay cafiye masaamax kun jeer horena waan ku odhay waan ogay qabiiladan qaar aan ka dhasho isaaqaan mararka qaar wax ka sheega way sognay go-aanadii horena dee walaalahay waan iska bedelay maasha allah anigu fikradaan duraa fikradaha nimankaasaan duraya laakiin waan iska daayay wixii la odhan jiray allahu mustacaan shaksi personal attack walaa musabixi walaa cabdiweli gaas walaa fikradahoodan ka hadlaya waana tiligala taliyey halkan arkaysan waa curadkan wallahi bartan soo fadhiisiyey dee isagaa ban meel ka dhac marmarka qaar de haddaan kusoo rataraaro aan maxaa nimankaa dee anigu asnaan baan idhahdaa runtaa fiicane waayo qofkana qarannimadiibidi kaga weynba musabixi cabdiweli gaas
axmed madoobe dabeetana marka qaarta haddaan kusoo taraarno raalli ahaada nabar xaqdarra ilahay idinka dhigo marka waxaan leeyahay maasha allah guul iyo gobonimo walaalayaal aad iyo aad baan idin jecelahay ummadda soomaaliyeed waxaana jecelahay in dhammaanteenba qof kastaba mas-uuliyad baa ka saaran wallaahi dalkiisa iyo midnimadiisa iyo la dagaalanka qabyaaladda walaalaha gabooye waxaan leeyahay iyagana hala barbar istaago yaan la ilaawin waayo soomaaliya la xijecelo tacab badan bay gashadeen xukuumaddeeda nabad iyo nolol waxaan leeyahay bilaa calayk dadka idinkuna hoos u eega oo u fiirsada oo mudane madaxweyne hadda ma aha aniga dhalin kantaasay bedelayaan mudane madaxweyne dalka adiga maanta noo hogaamiya waan kuu ducaynayna la taliyayaasha arrimaha bulshada iyo bulshada ha ka warhaya waa taasoo waad arkaysaa inantii maanta jamiila jaa jibriil iyo midnimo qaran qaar baa idinka idinla imanaya oo ku been abuuranaya waa bal mar fariintaana madaxweynaha way gaadhi doontaa insha allahu tacaala rajada ma dhigayno rajaduna one day maaha sanadna maaha intaanu noolahay idinkuna ha dhigina anigu dadkow idinku ha dhigina anigu cabsaan ahaan mar hore guddoonsaday aad iyo aad baan idin salaamayaa guul iyo gobonimo fifa nabad iyo nolol fifa qaranka fifa soomaali weyn wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu